بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. من البعد جبتان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا رحمتي سئير رضا ديس إلهي سبحانه وتعالى إنسان قادني ونسيه. اللهم يا رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا فوق الأرض وأن ترحمنا تحت الأرض وأن ترحمنا يوم الحساب يا رحمن يا رحيم. وعن ونكسن ولا له مسلمين تميل وبعد جوتان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا إنه هرسي هركيسا مال إنه سنجرن حركة إلهي سبحانه وتعالى موي إنه نوكل ميو جنة الفردوس على إخوانا على سور المتقابلين. أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومكروا مكر الله والله خير الماكرين. إلهي سبحانه وتعالى هدور رالك النقض وحن جعلها إن شاء الله وحن جعلها السي إنا يرد الاستقنو قصير وقابل. مالين مالمها كمد آيا وحال لقصو قري جريدوين كمد جريدة كمد جريدوين كمد كمد جريدوين كودن كعربها كصبح مد كمد آيا وحال لقصو قري أرين تاسنا وحا سو قري ninkii arrinkaa ku dhacay mise sameeyey, wuxuuna ka codsaday inaana magaciisa la sheegin jariidadaasi. wuxuuna u sheegay arrinkaasi buu leeyahay markuu sheegayay waxaan u sheegayaa buu yiri in ay kuwaana qaataan dadka cuquusha u saaxiibka ah, dadka caqliyada leh, dadka ilaahay subxaanahu watacaala ku xiran ee ilaahay subxaanahu watacaala xaqiiqada u yaqaano. wuxuu leeyahay qisada bilowgeeda wuxuu leeyahay waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo dhiganaya jaamacadda markaan dhiganay ayaan waxaan bartay gabar muslimad ah ayaan meesha isku baranay. gabadhii intaan muddo isla soconay waqti aan isla qaadanay buu leeyahay waxaa maalin maalmaha ka mid ah xumaan baa inaga dhacday. xumaanta marka ay inaga dhacday kadib ayaa waxay i qaatay inantii uur bay qaaday. markay muddo isla socdeen kadib baa uurkii qaaday. markay uurka ay qaaday baa familkii baa ogaaday inanta dadka ay ka dhalatay ayaa ogaaday gabadhii inay inanteeda uur leedahay. meeshii bay buuq iyo qalalaasa iyo meeshii ku sameeyeen. meeshiibaa waxaa ka dhacay xumaatadii ninkii geystay in la raadiyo. markaas baa walaalkii arrinkii loo sheegay, gabadha la dhashay baa wuxuu soo caraysan soo aaday qofkii xumaanta ku sameeyey walaashii soo sheegtay. waxayna kusoo tiri falan baa igu sameeyey. sidii buu kusoo aaday ninka arrinkan sameeyey yarkan jaamacadda dhiganaya buu ahaa. yarkii markuu u yimid gabadha walaalkeeda wuxuu ku yidhi waxay hawaanan ilaahay ka xishoonin, maxaad ku samaysay walaashay? maadigaa waxaa ku sameeyey? wuxuu ugu jawaabay war aniga waxba kumaanan sameynin, orodoo raaso ciddii ku samaysay. laa ilaaha ila allah. walaalka qalbiga xanuunayay ee walaashii ka naxsanaa jawaab kale wuu waayey, wax kale uu qabtana wuu waayey, wax kale uu sameey wuu waayey. markuu ninka ku yidhi waxba kumaanan sameynin odoba iga tag, kadib ba uu iska soo noqday, guriga iskaga soo laabtay. laakiin ninkii arrinkaa sameeyey wuu inkiray, wuu iska dhaqaaqay. wuxuu leeyahay ninkii arrinka sameeyey muddo marka ay kasoo wareegatay arrinka aan sameeyey waan iska hilmaamay, sanawaad ay kasoo wareegatay. anigoo shaqo ka imid baa walaashay shaqo ka imid baa guriga soo galay buu leeyahay. waxaan kusoo galay gurigii hooyo ooynayso oo qeelinayso oo dhulka isku garaacayso. markaan u imid hooyo maxaa ku helay aan arrintii hooyo ka naxay ee ilaah hadli weyday aan baryay. markii dambe waxay igu tiri ordo walaashaa fiiri. markaba waxaan ku iri buu leeyahay hooyo maxaa ku dhacay walaashay maxaa ku dhacay buu leeyahay. waan ku iri buu yidhi laa ilaaha ila allah. markaabay hooyadii ku tiri hooyo gabadhaada kula dhalatay waxay uur leedahay ise uureeyey ninkii jiiraankeena ahaa. laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. markii sidaa arrinkii ay ku dhacday buu yarkii uu dhaqaaqay. wuxuu aaday ninkii walaashii arrinkaa ku sameeyey isagoo raadsanaya. markaa wuxuu ku yidhi kheer laawow maxaad walaashayda ku samaysay mise adigaa ku sameeyey arrinkaa?
wuuse ilaaway miduu hore usoo sameeyey. markaabuu ugu jawaabay kelmadii hore oo ninkii hore uu ku yiri wareedhe aniga walaasha waxba maanan ku samayn orodoo raasi qofkii ku sameeyey. laa ilaha ila allah waljazaau min jinsi alcamal. laa ilaha ila allah. wuxuu yidhi markuu arrinkii su-aashii ugu jawaabay tii baan soo xasuustay aniga aan ku yidhi ninkii hore xanuunkeedii marka hore maanan dareemin laakiin sida warankii oo kale qalbigayga u taabatay buu yidhi korkayga way ka dhex baxday arrinkaas. laa ilaha ila allah. meeshaasi baan qalbi xanuun iyo xumaato iyo walwalba ku noolaa buu leeyahay. muddo markay kasoo wareegatay baan waxaan isku dayay inaan guursado. laa ilaha ila allah. fiiri walaal, qofka markuu xumaanta sameeyo wuu iska ilaawo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala yumhil walaa yuhmil. ilaahay subxaanahu watacaala qofka wuu usii dadeynaya laakiin ilaahay subxaanahu watacaala waxba ma ilaawayo. laa ilaha ila allah. fiiri walaal, markay muddo ay kasoo wareegatay wuxuu isku dayay yarkii inuu guursado. markuu guursaday baa waxaa soo baxay, markuu inantii guursanayay baa waxaa kusoo baxay gabadhi uu qabay inay nin kale lasoo seexatay. laa ilaha ila allah. markaasi bay bariday, waxay ku tiri ilaahay baan kugu dhaariyay i astur. ilaahay subxaana watacaala ha ku asturo. wuxuu leeyahay qalbigayga anigoo gago-ayo aanan u adkaysan karin bantii u adkaystay, waan iska sabray. muddo ayaan iskula noolaanay buu leeyahay gabadhii xaaskii aan guursaday. kadib ba waxaa ii dhashay inanta markaa ii dhashay inan badan, inan aada u qurxoon oo ilaahay subxaana watacaala qurux siiye ahayd, sida dayax oo kale u iftiimayso u nuureyso buu ilaahay siiye buu leeyahay. inanteedii yareed markay ay weynaatay, maalin maalmaha kamid ah markay 6 sano ay gaartay iyadoo dugsiga kasoo socoto mise iskuul kasoo socoto baan waxaan maqlay qayladii inanteeda qaylinayso. markaan banaanka usoo baxay baan waxaa la kulmay inanteedii yareed ee 6 jirka ahayd. ninka xaaliska ah baa kubsaday. laa ilaha ila allah. wamakaruu makr allah wallahu khayru lmaakiriin. ilaahay ow rabbi raxmaan waxay naga yeelin maxaarimtaada kuwii gala. ilaahay rabbi raxmaano wallahi aladi laa ilaha illaa hu. ilaahay subxaana watacaala wuu caroonayaa qofkii xuduudiisa usoo gudbo. wallahi aladi laa ilaha illaa hu. xuduudda ilahay haddaad usoo gudubto ilaahay subxaana watacaala wuu kaa jaasinayaa. waxaa laga yaabaa mid walba anaga naga mid inuu leeyahay wallahi aladi laa ilaha illaa hu, miskiinkaasi waa la dhibay. laakiin waxaa ka weyneed wuxuu u gudbay, xadku u gudbay. walaalayaal, haddaan annaga dib iskugu soo laabano meeshaan ku dhex jirno xaaladda internetka ah, waxaad arkaysaa wiil Soomaali ah oo muslim sheeganayo gabar walaalaha muslimad ah sawirkeedii gudbinayo. iska daaba waxaan weli sii arkay gabdho oynayo waxay leeyihiin gabdho xijaaban oo asturan baa ayagoo suulooyinkii ku jiray. ilaahay subxaanahu watacaala ha asture baa suulooyinkii laga soo sawiray. mise meelaha duurka ay degan yihiin aanan suulada lahayn, suulada qaali oo suulooyinka qaaliga, suulooyinka caadiga ah oo jingadaha oo kaleeta ayagoo ku jiraan. mise xaajooyinkeeda gudanaya baa video laga soo qaaday baa lasoo geliyay youtube-ka. laa ilaha ila allah. kaasi muxuu noqon doonaa abaalkiisa? miyaynan la dhalan gabar, miyaynan dhalin gabar, miyaynan dhalin hooyo. laa ilaha ila allah. miyuunan guursan doonin? siduubuu ku noolaan doonaa? abaalkiisa siduu noqon doonaa? ninkani keliya wuxuu sameeyey hal mar buu xumaan ku dhacay, laakiin ninkiin xumaanta inantaasi faafinayo, sawirkeeda faafinayo, intaasoo kuna qof korkeeda tusinayo, siduubuu noqon doonaa abaalkeeda? ninkaana hal mar keliya ayuu sameeyey xumaan, uu gabar buu uurayy, wuu inkiray. adiga sawirkaasi gudbinayo, intaasoo kuna qof arkayso, ninka commenti kasii bixinayo, ninka sii gudbinayo, sii qeybinayo. mise gabadha inay sawir wiil soo qaado ciryaana oo qeybinaysaay, mise video soo qaadaay. ilaahay subxaana watacaala miyaadan ka xishoon? walaal nafteedii naftiina maxaan u dardaarmayna ilaahay subxaana watacaala aan u laabano. wallahi aladi laa ilaha illaa hu. ilaahay subxaana watacaala wuu noo sii dadaynayaa oo ilaahay subxaana watacaala waxba kama qarsoono. ilaahay subxaana watacaala jaanis buu ina siinayaa, waqti buu ina siinayaa saan ku toobadkeeno, laakiin ilaahay subxaana watacaala waxba kama qarsoono. ilaahay subxaana watacaala daqiiqad keliya, laxdo keliya hadduu doonan kula gooyo kula goon karaa. walaalayaal, ilaahay subxaana watacaala aan ka boqon aniga iyo idikaba. wallahi aladi laa ilaha illaa hu. qofka bini aadanka ah oo qof muslim dulmiyo, wallahi aladi laa ilaha illaa hu inuusan liibaanaynin.
qofka rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ka hadlayay qofka mufliska ah wuxuu yidhi ma taqaanin qofka mufliska ah aan waxba aanan haysan markaas waxay yidhi tacrifuun minhu lmuflis waxaa lagu yidhi rasuulka saxaabtii baa u jawab wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay o ma naqaano mise waxay ugu jawaabeen ilaahay o kanaan waxba haysan rasuulkiisa weeyaan markaas wuxuu ugu yidhi rasuulka waa midka camal wanaagsan sameeyey markii maalinta yowmal qiyaama la keenay hebel buu caayey hebel buu xurmadiisa galay hebel buu wax ka sameeyey hebel buu aflagaadeeyey hebel buu sawiradiisa qaybiyey ajarkiisa waa laga qaadanayaa ajarkii markii uu ka dhamaado oo ajarkii uu ka dhamaado markaasuu mid kale soo dacwoonay ilaahay o maalin buu ixantay ilaahay o maalin buu sidaa igu sameeyey ilaahay o maalkaygii buu qaatay markaas baa waxaa loo qaadayaa xasanaadka markay ka dhamaadaan waxaa la leeyahay ilaahay xasanaadkiisa waa ka dhamaadeen maxaan ku sameynaa markaas waxaa leeyahay xumaantii kasoo qaada ay sameeyeen kuwa qaladka galay ee xumaantii baa lagu bedelaya laa ilaaha ila allah walaalyaelana ilaahay ka maqno wallahi aladi laa ilaha illaa hu haddaad caawa ku dhimato sawirkaaga mise sawir dadow adoo sawir dadow qaybinayo mise sawir walaal ay leedahay mise walaal uu leeya adoo qaybinayo xumaan ah aad caawa ku dhimato wallahi aladi laa ilaha illaa hu dhib baad la kulmaysaa aan noqono in ilaahay subxaanahu watacaala a kuwii u laabto ilaahay subxaanahu watacaala waa raxmaan ghafuur raxiim ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi suuradda taaha wainii lagafaaru liman taaba waamana wacamila صaalixan thumma ihtadaa aniga waxaan ahay qof u dambi dhaafa gafaar ah baan dambi dhaafa baan ahay kee baan u dambi dhaafaya liman taab qofkii toobad keena wa aamana wacamila saalixa misena rumeeya ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa xuduuda ilaahay subxaanahu watacaala ana ilaaliyo laa ilaha ila allah aan maxaarimta ilaahay subxaanahu watacaala aan ka dheeraano alaa waina likulli malakin ximaa alaa waina maxma allahi maxaaribu xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam buu ahaa alaa waina likulli malakin ximaa boqor walba mise melik walba wuxuu leeyahay soodintiisana looma soo gudbi karo booliis baa u taagan alaa waina xima allahi maxaarimu ilaahay subxaanahu watacaala soodintiisa mise xadkiisa waa inaad ilaahay subxaanahu watacaala xumaanta uu kaa reeba aada gudato walaalaha ilaahay subxaanahu watacaala u abuurtay aad xumaantooda aada faafiso addoommada ilaahay aada dulmiso alaa waina xima allahi maxaarimu markaan ilaahay subxaanahu watacaala maxaarimtiisa walaalyaal aan ka dhowrsanaano hada wabillahi tawfiiq wajazaakum allahu khayra ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa walaal walbo ilaahay subxaanahu watacaala dartiis u toobad keeno inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbalo annagana ilaahay subxaanahu watacaala taa'ibeen naga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ah uu inoo saaro walaal walbo ilaahay subxaanahu watacaala aan dartiisa ugu dacwada ugu yeerayno ilaahay uu dacwada ugu yeerayo walaalaha uu miisaanka xasanaadka u saaro hada wabillahi tawfiiq ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsanah أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام الله عليكم ورحمته وبركاته